Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaybtan waxay noqonaysaa qaybtii tobanaad ilaa iyo qaybo badan aan kasoo hadlay. Qaybtan qaybtii tobanaad waaye. Waxaan tusi doonaa qaabka loogu sarrifto EFC Plus to Bayer iyo Bayer sida hadaa haysato EFC Plus qaabka ula bixi lahayd. Ma fahantay? Ugu horreyn application-ka hadduu iskugu jiro Play Store-ka kusoo degsan kartaa. Application-ka waxaa la dhahaa Somali Sarif. Waaga Somali Sarif waa ku dhufanaysaa, ku dhufa kadibna Bayer aa rabtaa Bayer aa rabtaa hadda maayno qaab labada qaab waan tusi doonaa insha Allah. Kow waxaa ku hormarina EFC Plus aa haystaa waxaa rabaa Bayer qaabkay ugu sarifnaa marka waxaa ku dhufanaysaa halkaas kore kadibna select aad taabanaysaa select current kadibna halkan hoos aad wadaysaa EFC Plus ku dhufanaysaa lacagta haysatid waxaa rabtaa inta ku dhufa marka waxaa rabtid select current dheh kadib Bayer aa rabaa dheh Bayer waa kana ka dooro Bayer ku dhufo kadibna tusaale waxaa rabtaa $2 iyo 20 senti oo Bayer ah $2 iyo 20 senti diri waxaa heli $2 Bayer ah kadib waxaa ku dhufanaysaa exchange ku dhufaysaa qaabkan uu soo baxay ma fahantay hadaa hore iska diiwaan gelisay log in kaada gelinaysaa username kaada iyo password kaada kadibna mar kale page kan kuma weydiinayo ma fahantay hadaa hore iska diiwaan gelina register taabo qaabka la iska diiwaan geliyo hadaa ka seenna video part 1 ka soo daawo okay hadda meesha waxaan gelinaynaa username kan ama email kan aan ku sameeysanay waa ka si automatic ay soo saaraya kaasa ku sameystay kadib remember me da iyo xasuusnaa oo kadib log in ku dhufo meeshaas calaamad sax la saaraa iska dhaaf kartaa daartid hadda meeshan ku soo salaamay mar walba haddii log in account-kaada ku yahay waa gali kartaa waa sarfin kartaa lacagtaada exchange ku dhufanina kadibna meeshan aan soo bixin faad meeshan Bayer wallet Bayer ka lacagta lagu soo diray la halkan gelinaysaa fahanti Bayer keena galina account-keena Bayer galina account-keena Bayer mga galno waa kaas account-kaas ku bireynayna lacagta noo soo diray la kadib meeshaan ku dhufanayna copy ku dhufayna oo soo copy gareysmay kadibna app-ka ku soo laabanayna kadibna paste ku dheena account-ka kadib confirm exchange ku dhufayna confirm exchange ku dhufayna asana soo baxayso waa kana qaabkan uu soo baxay marka lacagta qaabkan u dirayna EFC Plus qaabkan u dirayna ma fahantay saas leenahay saas waxaan dhan ku gareynayna ku beedayna kadibna waxa okay galeyna okay magagal meeshaan bast ku dheena meeshaan lacagta ku qoraysa marka $2 iyo 20 senti aad rabtid kadibna waxa ku dhufanaysaa okay ku dhufanaysaa okay kadibna waa kana wuxuu ku leeyahay wax kaga iibsanaysa moobta luuda ina wax ka iibsanaysa Somali Sarif online kadibna pinkaada gashanaysaa kadibna waxa ku dhufanaysaa send kadib waa kana lacagta waa dirnay ma fahantay lacagta markaa dirnay okay dheena kadib waxa ku dhufanayna halkan kadib meesha numberka EFC Plus numberka lacagta ka soo dirtay gelinaysaa eber 6 hal tusaale waaye 7 amal 65 66 saas kale oo ma fahantay kadibna submit aadena kadib submit marka dhaano halkan waxa u jeedaa pending daqiiqada kadibna approve lacagtaada waa lagu dir waa macna kadib waxa dheena refresh dheena kadib kana approve lacagta way soo gaartay ma fahantay lacagta way soo gaartay Bayerkaada waa hubi kartaa message inuu soo dhacay Bayerkaada u jeedaa waa kaasa $7 noqotay ma fahantay eber $5 ku jirtay $2 waa kaasa ay ku soo dhacday kor marka qaabkaas loogu sariftaa Bayerkana qaabka uu shunayso waa qaabkaas qaab kale marin qaabkay u la bixaysaa marka uu la bixaysid oo yaani tusaale waxa haysataa Bayer waxa rabtaa EFC Plus Bayer haysta EFC Plus waa rabtaa kadib waxa taabanaysaa select taabanaysaa current Bayerka dooranaysaa Bayer haysta select current labaadkana waxa dhisa EFC Plus rabaa dhisa
kadibna halkan waxaa ku qoreysaa lacagta oo rabtid inaad la baxdid $2 camal. $2 hadaa la baxdo $2 heleysa camal uu leeyahay. Kadib waxaad taabaneysaa exchange markaad taabatid kadibna meeshaan EFC Plus wallet nambarka EFC Plus ka gelineysaa. Nambarka EFC Plus ka qaldin kadibna confirm dheh. Confirm markaad kadibna bayarkan copy soo dheh. Kadib bayarka copy markaad soo dheh transfer dheh. Bayar ku sii dhufo. Kadibna meeshaan lacagta geli. Kadibna akoonka bayarka copy soo dhahda halkan geli. Basti ku dheh. Halkaas kadibna waxaa ku dhufeysaa transfer ku dhufeysaa. Markaa basti dhahayd inta space u dhaxaysiinaya space bayar oo diidaa ka tir space ka saas u tir saas 2 space u dhaxaysiiyay. Kadib saas markaa dhahayd kadibna halkan oo transfer kan waa kaasa mujeeda transfer waa kan hadda waa ku dhufan kartaa. Ku dhufo kadibna confirm si dhaadana batonka confirm si taabo. Waa kana confirm dhahday confirm dhahday hadda waa lacagta waa dirtay $2. Kadibna bayarka ku soo laabo meeshaan you bayar account ayaa lagu dhahay. Bayarka lacagta ku soo dirtay akoonka lacagta ku soo dirtay gelineysaa. Halkaas aad taabaneysaa. Halkaas ku sii dhufo bayarkaada copy dheh hadda kor ka siinin copy markaa dhahayd kadibna akoonkaada maaw kadib basti ku dheh kadibna submit dheh. Wixii intaas ka dambeeya EFC Plus ka $2 way ku soo gaaraysaa. Okay, EFC Plus $2 ku soo gaaraysaa. Hadda waa kanaas waa dalbatay kadib pending waaye markaa profit meeshaan ku soo qoranta lacagta EFC Plus ka waa lagu soo diri waaye. Okay, kadib refresh kor soo dheh. Isku dhii waaye akoonkaada gal halkaas saddexdaas calaamad ku dhufo kadibna login dheh. Akoonkaada galaysaa kadib meeshaan 8 jeer lacag ka sarifay meeshaan views all ku dhufo. Kadib waa kana lacagta bayar to EFC Plus waa la approve gareeyay. Waa soo degsan kartaa sawirka oo lacagta in lagu soo diray in kala ah. Kadib waa soo bixaysaa file-kaada galaysaa. Meeshaan file ay ku qoran tahay galaysaa. Kadib document ku dhufo. Kadibna downloading ku dhufo. Kadib halkaas ku dhufo kor lacagta oo sarfati waaye meenaya. Lacagta sarfati ayaa waa kana mujida. Kan ma ahan kaas wali ma soo galina umaleynaa sida rajeyna. Waa kana hadda soo galay 8 October tahay kadibna meeshaas ku dhufo PDF aan u fiirsaysaa waa kana mujida. EFC Plus nambarka loo diray profit waa la profit gareey pending ma ahan camal xogtaada dhan lacagta sarfati dhan warqadan camal san ku sameynaa saas u soo degsan kartaa. Waxaan rajeynayaa inaad fahantay haddii caawinaad rabtid halkaan ay caawinaad ku weydiisan kartaa. Akoonkaadana qaabka loo galo hadda inaa aragtay amleena login la leedahay. Hadaa rabtid inaad lacag ka samaysid you link aad taabaneysaa. Linkiyaada dadku share gareynaysaa qof walba isku diiwaan geli lacag ka sarifta mar walba lacag ka sariftana commission aad helaysaa. Ma fahantay? Waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahantay waqtiina sii dheereeyay marabo qaabka EFC Plus loogu sarifto loogu shubto iyo sida loola baxo. Waxaan rajeynayaa inaad fahantay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.